xabse maxamed luqmaan oo ahayd gabadhii Soomaalida ee Nairobi lagu afduubtay ayaa waxay ka warbixinaysaa sida ay wax u dhaceen iyo afduubkeeda cidii ka dambeysay iyadoo tilmaamtay in gabar ay aqoon u lahayd oo waliba ay lacag ku lahayd ay ka dambeysay afduubkeeda maalin talaada ahayd gabadhu way soo wacday waxay ugu dhahday galabta ma is arki karnaa amal marka shaqada ka baxday saasifaan lacagtaada ku sii أنا وحن كده هاي إن شاء الله يسوي مرشقة ما كده ما تفاتي جود حقيقي ما تفايف 16 أنا والشقة حير هاي هذا موتها اسمه كاغن أم إراعي كرتا أنا وحن كده أنت مال كيولا لا ده مال كيولا لا ده يقول هذا قبل ما كوار راعي حين جيس كيولا أنا جيس ستور كشيء جيس أنا ستور كمان إبروها وحبكم مجرد بس مقرب على جاري مقرب عن كذا كانت كذا أيضا محاول تلفون هاي ستة بشت جرينيس بس حاول مركا أنا سأوفر إن أوشة كيسنة إن اللبن أو حق مادي أو وين أو أيضا أنحر حرن رمت مدو حرن مع الوجه أو أقرصنا حأرك هالمر لقف قورت أنت قبنا وقولك يوسي دا قورك ويتمان قعما يحر حرن اللغة كالوجه كعما يجح حرين دهنا وإيه حرين قشنا ماشي على صودست باش أو مركب باو ما أعرف لشي بالكاس أفكي وقرن مركب متونجي ماشي على بيك كتير أنا ناس لما أنتري ما لكن وحبة ما أركها متونجي قال يقول أحردي جاري كان سدان ماشي إذا قاعدين وحقيقينا مال كلا قري كلا أسكت أحد السن بس قري مركب كانن وحاول ويغفر فرن حرقة يقول حرنا يقرب كيغفر فرن gacmaha iyo lugaha iga xiran hadana waxay ugu sii xiranayeen kool salate ee wajiga iga xiran waxay dheen hadaa qaylaysid waan ku dilayna ee aamus waxay dhaheen marka gurigeena yaa ka mas'uul ah nambarka nasiina karta nambarka abaayans lagu dhahay walaasha inta ma joogto laakiin wala hadli kartina liida gaarsiin abaay nambarkeeda iga qaateen ayadana ma joogan markaas man dheeray joogtay بس ما باينا مركز مركز قاتم حدن أون إيجاجو حتى درمس أنا جا واحد سنين أنا مقتلين لكن وحنقول قبسنا العقل يرمنا العقل أنت أنا عرفتينا الشم مليون ويدهن بس هذا يقولي الله هذا لا بس حقيقي كانن بي حنون بابي إسيان إلا بحب ما إسيان كدم بمعنى أكتر ما xabso waxa ay sheegaysaa muddadii 6 cisho ahayd ee kooxahaas u afduubneed inaysan waxna cunin waxna cabin jambari wax afkay masaar inta meesha aan ku jiro dhan hadda intaan ka badan hada meesha aan ku jirto meesha wax ku arkay ma leedo inta ku dhimanay meedkaadana dadkiin way waynay ana marka hore waxay ugu dhaheen guriga ku xiga ku jirna hada qaylis waa ku maqlayna aamus sidoo kale xabso waxay ka sheekaynaysaa qaabkii ay ku suura gashay in halkaasi laga soo badbaadiyo maalinta dambe axadii aan dhahay xafsooy beddelka inta ku dhiman lahayd qayle baan qayle ilmo yariisa meesha ku ciyaaray waxaan ku dhahay in igu soo yeer maamooyinka xaafad oo igu soo waceen waxaan ku dhahay maxaa dhahan inta yaa ku keen waxaan ku dhahay tuuga inta keentay ameel ugu soo xiray talaada igu soo xireenaan dhahay bas waxay dhahan marka maanta ayaan tahay aan ku weydiiyay waxay dhahan maanta axad waay ana marka waa yaabay marka axad maanta si ku noqoto waqtigu ila orday ana ayaga aamini waay marka waxaan ku dhahay idinku wax ima qaban kartiin dhow keeskan idinkan ku soo gudinaaye booliisku ugu waca booliis aligu wacay booliista marka meesha way ugu qofuleen qofulku way jibin waay albaabka dhan ay fujiyeen dadka falkaas ku geystay qayb kamid madaxda booliiska markay daba kaceen soo heleen dadka dhibaatooyinkaas waa la haayaa يلا هيا gabadhii ku shaqooshay iyo ninka ma la helay gabadhii iyo xasaabtii la soo helay iyo ninka labadooda waxay dhanka kale Umar Sheekh Ibrahim oo isagu kamid ah dadka ehelahan u dhow Xafsa ayaa waxa uu ka waramay xilligii gabadhooda ay ka maqneed dareenkooda sida uu ahaa waxay naga maqneed Arbaca Khamiis Jimcaha Sabti ilaa Axad laga soo halay inta bari ay naga maqneed aad dib weyn aad inoo soo dirsay madi kalena markaan gabar talnay aad iyo aadan maxaa la ii sheegay aan faraxnay ilaahan maxaa la u mahad celinay salaatu shukri aan tukunay dan hadda marka qof kasta wax uu leeyahay xalay aan daba gal arinta wax kale ma hooyo xaas ah
oo lala qaba xaas kale oo Mareykanka joogta oo shaanshi ah aaskaas waa cadcadka shaanshida waay baa waxay ka maseertay hooyadan macnaha hooyadan waxay haysataa hal cunug Nairobi aniga meel kale waxay ugu soo tagtay Ilaahay baa iga garanaya inta waxay ku haysatay gabar ee dhashay hooyada la dilaayo waaye gabar ee dhashay iyo gabar habaryar iyo eedda midka u taa ansixi karin laba gabdhood ayay guriga ku haysatay islaantii maseersaneed ee Mareykanka joogtay way daba gashay islaanta sidii u dil lahayd macnaha islaanta kale inay disheerto marka hore waaye meel kasta gash waxay u heshay Janice darawalka ayada ilaan hooyooyinka Nairobi iyo qurbaha joogo hal darawal iska cabiraya ma ka fuji karto wiilkeyga Haashim baa la sida ii sheegay waan in ogaadino Cabdallah hadda waa taasi Haashim intay qaad hooyada waa taqaanaa Ilaahay hooyo khayr ha siiyo inta Haashim intay qaad adiga waxay soo ogaatay darawalkii ay soo ogaatay waa naagta Mareykanka joogto waxay gacanta ka saartay yaa war idinku badinay warka boontigiisa jeclaay $10,000 1 milyan oo Kenya money islaantaas idil nacaskan marka 10 iskama laqiyo waxa dhig muslim la galiyay 10 waa haysataa wuxuu ku shubtay bank ku yaal Ethiopia 10 waa heshay wadan sharci laha joogtay maxaa dhig ku galiyay qof muslina tahay saddex qof meedkooda saddex sababta u dilno ku sheegi doona in islaanta loo diray maxaa meedkiisa meedadkooda iyo gacan gudhigil ka dhigay Allah muxuu naxsan anigu waaye islaantii baa wacatay dhakhtarka maqaarka rabaa meetir mise dhakhtarka indhaha sida caadiga customer bay u ahayd waa qabay meel buu geeyay kow buu ka siiyay taleefankeedu waa diminaa waa daara marka mishinku wuu fuliyay isaga markuu fuliyay oo mishinku uu ku guuleystay wuxuu ku fikiray islaanta lacag soo dhiibtay in gabdhaha la dilo ayada qorshaha ugu jiro danka ma laha laakiin ninkan baad dan ka gasho sababta maxay tahay islaanta markay bixisay inay Haashim raacday labada gabdhood waa ogaayeen ilaa gabdhaheedu waayeen si islaanta hadii la waayay asaa loo qabsanaa Soomaaliya wala dabagalaa Soomaaliya wuxuu ku fikiray casnimadiisi kuwan filinkan oo qeyb ay ka og yihiin ayagana dil taleefankeedu daara uu diminaa marka dambe wuxuu dhaqaale hooyaa idin saacidad u baahanay xoog bay u baahan tahay kaalay adin kara albaabku u imaaday gabadhii yariista korta ayada dhashay tii habartii eedad midkay u taal garan maaye ayada xoogaa way cabsatay xoog buu ku saaray adoon buu wataa ninkan marka adoontaana $50,000 Kenya daasi $300 hore u soo xareeyna soy waa kala bakaara marka labadii waa jarjaray indhahana waa ka baxsaday kaliya laga bixin maan kaliya waa laga tooriyay meel kasta laga dilay indhaha sawray qaadaan meena marka qofka dhinto saasa artay indhaha looga bixiyay saddexdooda haba sameeyay Ilaahay ka furtay kaase geesinimadiisa waa jaahil wadanka dawlad baa ka jirta gaarigii uu intuu ku qaaday darawal inuu qaad gaarigiisa inuu yahay darawal waay isaga inuu gaari kale u adeegsado waxay noqotaba buu meedadka qeyqeybiyo meena meedadkiisa aan bariis amal qeybna maqaayad delivery dabaalmadiisa fiir camera ku dhacis ma jirto gaariga targidiisa la aqoonsana ma jirto haba shay waana baxsiyaad si ay nimankan dambi baariyaasha Kenya markii ugu horeysay badheenba waa hadcidan baaris marka loo Kenya number 1 Africa sheekadan sheeka Soomaaliya waa idin sheeka Soomaaliya waa hadda xaalad saasi waxa u jiraan marka dad badan oo iska dambaabay arkay magafayaala imaada inta imaada boolta laga cararo faras laga cararo ma aha bolt iyo faras taargay leeyihiin qof shaqadiisa inuu isaga dilo qof kale oo shaqadiisa ku waayo xabsi inuu galo boltana gabar maskiina iyo wiil maskiin oo isla joogo ama Nairobi iska joogo wuxuu ku falay male adista inuu taleefanka qaatoori ku qabto waa suurtagal laakiin inuu ku dilo tiisi ku soo laabanaysa daaqal leeyahay marka saasi wax u jiraan Soomaalida musiiba heshay bal hooyo ku fikiraysa hooyo kale oo ilmaheeda ay walaalayihiin hal soo dilo islaan way dadda islaan maseerka ileen yaa BKSisa soo xasuuso qof weyn ani iiga ma tiidmiya ileen maseerka islaamaha weyn waa galaaba waxay noqotaba musiibadaas dhacday intiina Ilaahay jannadii firdawso gacanka xaqdar saddexda sablood Ilaahay wuxuu ka barayaa subhanahu wa ta'ala qof muslim ay inuu jannada Ilaahay abaal marin uga dhigo wax